بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي waxaan weydiisanaynaa في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. maanta ay taariikhdu tahay 22 bishii 6 2022. waxaan ka soo hadlayaa magaalada Dhahar Highland. waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo masaladan hadalhaynta badan dhalisay Puntland oo gudniinka ka haween ahaan waxaan u aragno ama waxaan isleeyahay mala ragga waa kaga xoogaalsan tihiin gudniinka fircooniga ah iyada laba kuwa muransan inuu masala arrin khatar u ahaa oo runtii dhaqamadii xumaay laga soo gaaray jaahiliga oo gabdhaha lagu cadibayay cid walba soo kasoo maaragtay joojinaysa ama hawsha wax ka qabanaysana waa ugu ducaynaynaa dabargoynteeda oo waliba aan islaana hadda aad buu si dabargo'an yahay ilaahay mahadi waxa jira marka waxna waa la sheegayaa waxna waa la sheelayaa anagu waa fahmi la'nahay masalada gudniinka sunnaha ah horta waxaan idin sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka markuu si guud u karaameeyey balaqad karramna bani aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamo gaar ah oo qiimo badan gabdhihii baa la siiyey diinteenu waad aragteen oo in badan gabdhaha sharaf iyo qiimo qur-aanku si uga sheekeynayo ficladii iyo wanaagii ay samayn jireen gabdhaha wanaagsan annaga waxaan ku faraxsannahay ka haween ahaan inaanu nahay gabadhii ugu horreysay diinta markii nebi maxamed loo soo dhigay calayhi salaatu wasalaam inay qofkii u horreeyay iyadoo rag badan hareeri joogaan qofkii u horreeyay uu la tashaday nebigu oo dhiirigelintii u qiimaha badnay siisay hore u soco ilaahay ku hoojin maayo khadiijay ahayd umuna khadiija ilaahay ka raali noqdo way garab istaagtay waxaan ku faraxsannahay waliba inay ahayd qofkii ugu horreeyay diinta qaata oo rumeeyay inuu ahaa gabar oo khadiija waxaan ku faraxsannahay biyaha zamzamka qofkii ugu horreeyay caba gabar bay ahayd haajara dhiiggii qof muslima oo daata ugu horreeya ugu ku daata sumayay ahayd waa gabar waxaan ku faraxsannahay inaan hoggaan ku leenahay jannada faadima binti rasuul sallallahu alayhi wasallam oo ah sayidada maaragtay haweenka ahlu jannaha waxaan ku faraxsannahay oo qiimo iyo sharaf noo ah oo ilaahayna dejiyey oon ku faannaa hooyada nin qur-aanku uu ka sheekeeyey waalidka markuu ka sheekeeyey haddana si gaara hooyadii loo sii bayaaniyey maaragtay inay ku qaaday ilmihii maaragtay wahni ama dacfi iskor saaran iyadoo la muujinayo xaqa waalidka hooyadu ay leedahay qur-aanku waa ku filnaan lahayd in hooyadaa laga hadlo bal haddana gabdhihii baad garanaysaan xadiiska caaisha oo u imanaysay maamada wadato labada gabdhood wuxuu rasuulku ka yidhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanku in badan gabdhihii aasiya ummu maryama balqiisa ilaa inanteeradoo fariidi ahayd oo nabiyullaahi muuse walaashiisa ahayd waad aragtay qur-aanku suu gabdhaha uga sheekeynay bal waxaan ku faraxsannahay suuratu nisaa suurad la yidhaahdo naloogu magacdaray inay qur-aanka ku jirto oo suuradda afraada marka xaggan laga soo akhriyayo iyadoo markaa saa ogtihiin nebiga aana wiilal u kicin oo ilqabowsigiisa ay ahayd ugu badan gabdho sidoo kale ilaahay intuu abuuray addoonka ugu khayrka badnaa wuxuu ku baxay oo ku nafbaxay oo ilaahay uu ku oofsaday gabar dhabteeda caaisha waxaasoo dhan waxa weeye kartida iyo qiimaha diintu noo sheegtay way gabdhuhu gaareen iyo sharafta waxaad arkaysaa hadda soomaalida markaad aragto waxay ku oranayaan kala caana galeen xikmadi ma gelin caaishay ahayd saxaabadu qoftay ka doonan jireen cilmiga iyo xikmadda
cilmiga ayay ka doonan jireen, gabar bayna ahayd. halka Soomaalidu ay ka tiraahdo mahmaahyo badan bay Soomaalidu tiraahdaa. waxay yiraahdaan naagiyo dameero midka wado. waa subxaanallah. yani waxaad arkaysaa xataa fardihi lama oran. xayawaanku waxa ugu axmaqsan waqtigeena inuu naqaana ximaarka qofka ay kama dambayso qof ximaar la yidhi. marka waxay dhaheen gabdhihii bay waxay ku maahmaaheen naagiyo dameero midka wado. indheer garad ragna ku yar dumarna kuma jirto. waxyaaba waxaa iska jira iska badanoo gabdhaha Soomaalidu ay ku cunsureen jirtay. marka haddii diintiin halkaana dejisay, waxaan weydiinayaa marka gabdhaha Soomaaliyeed Soomaalina wanaagii ugu badnaa ay gabar u samaysay xaawataa sawirkaas wax ka oran mayo, idinka tegayaa ay tahay ma ilaahay iyo rasuulkiisa noo naxariis badan. diintan annaga waana sharaftay, jawharad bay naga dhigtay, bal waaba ka qaalisanahay dahabka. iyadoo markaa ilaahay saa noo sharfay oo diintana karaamaysay oo labiskayagii iyo socodkayagii iyo hadalkayagii guryihii ku ekaada halkaa in marwaxadahaas inoo baxaanoo ragguna halkaa ay soo dhiidaan oo rafaadaan oo xataa qabuurihii qalbigeena laga ilaaliyey sidaa ay diintu inoo ilaalisay. ilaahay iyo rasuulkiisa makaanka ina gaarsiiyey booska ah miyaa inoo naxariis badan mise bani aadan baynu ka doonnaa iyo dadkii gaaladii dadka qowrici jirtay iyagoo nool? ma waxaynu ka dalbanaa oo isweydiinaa gabdhaha Soomaaliyeed? waxaan rabaa inay isweydiiyaan, horta adigu yaa tahay? ma gabar islaam ah muslimad ah baan leeyahay oo Soomaaliya baa tahay mise gabar qarbiyada baa tahay? wax saddexeeya ma jiraan labadaas. marka intaas markaa ogaato waxa kuu soo baxaya waxa tahay baa kuu soo baxaya. idan markaas waxa ogaanaysaa inaad qiimaha ugu badan aad haysatid, wax ka maqan aanay jirin. haddii marka aan ku qanacsannahay diinteeda oo aanan garanaynin jirinna wallaahi alladii laa ilaaha khayruhu aanan jirin waxa ilaahay iyo rasuulkiisa naga jecel, waxaan waajib nagu ah inaan baranno. qofkuna hadduu diinta barto wuxuu ogaanayaa qiimaha ay gabadhu leedahay bay ogaanaysaa. cidna kuma qaldi karto, cidna kuma qaldi karto. waxaa arkaysaa rag Soomaaliyeed gabdhaha waxay ku leeyihiin waxaa saas laydin abuuray, saas wixii lagu abuuray waa lagu sheegay, diintu waa kuu sheegay. waxaan macno lahayn Soomaaliya gabdhaha aad ku diin uga dhigaysaan oo aad ku maaragtay niyad jabinaysaan laga daayo. intaa markaa aan ka imaado, waxaan rabaa marka sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa markuu jiro. marka hore culimada waxaan leeyahay culimada xadiis saxiixa in la isku maaragtay jiido saxaafadda dhexdeeda oo qolana tirada waa saxiix, qolana waa tirada waa daciif ama ma jiro, qolana tirada waa lagu dhaqmayaa, qolana tirada lagu dhaqmi mayo. waxaan u aragnaa inay tahay dadkii in la gelinayo axaadiistii saxiixa iyadoo kale laftarkooda inay dadka ka shakiyayaan. dadka qayb baa jira aan aragti fog lahayn, faham guud haysan, laakiin aad diinta dhaqan u haysta. sunnaha khamiis isniin iyo khamiis aanay ka tegin. sunnadii nabiga waa arka calayhi salaatu wasalaam waa sax waana tahay. salaadihii maaragta sunnayaashaa sidoo kale haddii xadiis saxiixa la yiri ma jiro, marka shaki badan baa axaadiis dadkii kaga leeyahay saxiixa ah. taa waxaan leeyahay marka in hoos loo dhameeyo baan codsanaynaa. tan kale waxaan leeyahay gudniinkii fircooniga ahaa hadda waa yaryahay. Puntlandna intaan ka war hayno gabdhuhu sunna loo gudaa. anigu intaasoo jeer baan anigu joogay waa gudnaa. yani gabdhihii saraawiil iyagoo sitaan soo kaxayna, iyagoo saraawiishooda sitay socdaan, sidaasayna waxbarashadii ku aadaan. waa soo marnay xilli hadda waxaan arkaa laakiin u fahmayaa maadaama masaladii gudniinkii fircooniga ahaa laga dagaalamayo in lagu taraaraxay macaa bilkuliya si loo joojiyo, la yiraahdo si kale looma joojin karo, waxba la isla wada joojiyo. waxaan aaminsanahay fircooniga laftarkiisii waa hadeer ku yar meelo yaryar ku soo haray baadiyaha iyo meelo dad jaahil ah, dadka diinta way fahmeen falilah alxamdu. in fircooni la isu gudo na waa garanaysaan waa dhaqankeennii hore, laakiin diinteenni baa fududaysay oo intaa yaroo maaragtay dejinta ah
ونحريست أن كهل إنه دينتنا إنه نحريست تبي كم تهاي وأشياء أما وحيابها ما ركت دقن كأني عرفي عادو وناكسن الحمد لله وهذا دينت إنه فقدي هذا إنه كجرنا وصلنا ولا مالين ما يهو يكو قناع حسن إنه يجرته قبر Soomaaliyeed oo gudnayn waayo waxa ku dareemaysaa intaas oo jeer baa la soo bandhigay marna lama qaadan iyadoo mar kasta xadiiska dadku waa dad islaam ah runtii waa ka daadegi laalahay xadiis saxiixa culimadu ka hadlayso hala joojiyo marka waxaan oran lahaa anagu waa ikhtiyaar waa ognahay qofkii rabana waa gudi karaa qofkaan rabana ma gudi karo soonka waad aragteen sunnaha qofkii raba waa soomaa qofkaan rabina martay waa shay qofka sameyntiisu ajar ka helay marka hadaan ajar ka helayno had ajar baan rabnaa inaan ilaahay ugu dhawaanaan rabnaa inaan sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam aan nooleynaan rabnaa sababtu marka anaga nolol ku diidayo inaan ilaahay ajarkan ugu dhawaano ma garan karno waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta cid walba masaladaas aslanba waxa jira waxaan dhuuntaada marin baa jira oo qofka aan ka daadagayn aad iyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin Allah idin barakeeyo tawfiiqdan Allah inoo waafajiyo masaladaasna waxaan ku soo gabagabaynaynaa gabdhaha reer Puntland gabdhaha reer Hargeysa gabdhaha xamar jooga ka duwanaan mayaan gabdhaha iyaguna gayaan bay leeyihiin reer Puntland ku ekaan mayaane waa ku qanacsanahay oo nafteeda ku xasiloon oo diin baan ka dhiganayna Ilaahay baan ugu dhawaanaynaa meel dhaxal la isugu yimaado wixii khaladaadu culus aad aragtaan hala joojiyo meel laga soo wada jeesto wixii ma aragtay hadda saan aragno waa anagu gabdhaha iyagaan u godanana waa u sheegaynaa meesha laga gudo aabayaashana waxaa leenahay gabdhaha ka warhayeen ilmahooda hanala soo xiriirin ciddii rabta meel ilmuhu isagoo sulwarkiisa soo galayo isagoo sulwarkiisa madrasada hore ka aadayo wacyigelintana insha Allah diyaar baan u nahay in gabdhaha cadwaada iyo jarjarka iyo maaragtay hawsha badan iyo rafaadka ah oo horey u jiri jirtay laga joojiyo sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo gabdhihii sida hadda aan Puntland u badan tahay in maaragtay loo wado inahaas aan rabaa Ilaahay idankiisa ku soo gabagabeeyo cid gaarana ma xoojinayno laakiin ra'yigayga cabiraynaa xaqna waa u leenahay inaan ra'yigayga cabirno maadaama aan hooyooyinahay gabdho noo joogaan una sheegno intaan hawshani fulin mas'uuliyiinta inay hawshaas la tixgeliyaan reer Puntland ahaan dariskuna aanay maaragtay maqal intaan hawsha lagu soo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.